كنت لنا لوضع دلك البلبهانتا اسكله ولبا خاتوما اسكله لوضع waxa nooga baxeen cid wax ku yeelo wasaba wax ku soo gaarayaan waa dhulbahanti marka labadaba Puntland iyo Somaliland labada midna dooni mayna labada wax naga baxeen waxaanu ka hadlaynaa bariyahan hadallo iska soo daba noqonayay oo beeshan dad ka soo jeeda ay ka hadlayeen hawsha dadkaas waxa weeyaan dadkan kuma matalaan mana nadirsan waxaanu leenahay dadka muslimiinta ee isku horfadhiyo horta meesha halkaas ku horfadhiyo Puntland iyo Somaliland dibtooda waana taabanaysaa waa dad muslimiina oo Soomaaliya inay dhalinyarada meesha isku horkana ay kala diraan oo qolo walba meesheedii iyo fadhiyadu ay ku noqoto dhulkan waa dhul baahante cid qaadan kartaa ma jirto qolona ma qaadan karto laakiin waxaan codsanaynaa dadka inaan sadan lagu raasano madax lagu raasano dadka muslimiinta qoladaasuna qolo aan matasho ma aha deenkii siyaasiga isagu siyaasadda oo ka hadli kara laakiin af beelad ku hadli kara ma jiro saasaan dadku u cadeynaya islaamka insha Allah ta'ala waxaan ka barinaa dadka in nabadgeliyo khayr qabta iyo dawlad khayr qabto caalamiya oo wadanka Soomaaliya oo dhan hanata taasaan insha Allah bidillah kariim ka waxaynaa nimanka afmeesharada ee ka hadlaya deegaanadan ila dadkan aan matala warka ay ku hadlayaan inuu yahay beelahan inaysan matalin waxaanu fahansanahay cidda ka dambaysa ee adeegsanaysa cidda ay tahay waa dad uu ka xidhmay albaabka madaxtooyada Somaliland ayaa siisay caanteyno hadalkaana u dhiibatay dadkana ma matalaan dadkaasi waa biri qaatayaal afmeesharaa cuqaalna ma aha odayaalna ma aha waa burleedii afmeesharada horta dadka afgodobeedka sameynaya taasaanu u sheegaynaa inuu yihiin dad beenawaasiina deegaankan aan matin dadkan aan matin annagu waxaan leenahay Somaliland waa ismahadiyeen laakiin waxaan u sheegaynaa inay ismahadin dambe jiri doonin odayaashuna waa soo sheegan annaga nama matalaan nama soo jeedi karaan godob waxaan leeyahay maamulka Somaliland iyo maamulka Puntland annaga midna hooyada maaha midna aabbaha maaha godobna uma geli karno umana godoboobayno annagu jaamac wararka warbaahinta SBC la saacanood